بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمان أخيار تطاوان السجن كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عبد الساق عمر وإذن له سود هذا دمان داوضياشا كحرا ويب سايت كان ليها سومالي فتنري ما أنت وحنو سوق لنا أو نسي وضينا عشرة يكون صابسنا كويك بوكا waxa kale oo aad ka heleysaan YouTube channel kan casharada ku saabsan veterinary-ga ama xanaanada xoolaha. Waxa weeyaan casharkeeni saddexaad hadaynu sii wadno ee ahaa barashada quick book. Barashada quick book hadaynu sii wadno waxaan ka soo hadalnay casharadii hore sida loo set up gareeyo company iyo sida loo abuuro customer, sida loo abuuro vendor qof lacag ugu leeyahay qof aad lacag ku leedahay iyo chart of account-ka aynu eegnay. introduction ka hore ka hadlay shaashada iyo qaybaha shata qaybada oo qaybsan tahay. maanta casharkeenan bal waxaynu kaga hadlaynaa customer inay wax ka iibino. customerka marka wax laga iibinayo laba qaybood baa wax laga iibinaya. customerka qaybi waxa weeyaan deyn baa customerka wax laga iibinayaa, qaybna wax laga iibinaya customerka cadaan baa laga iibinaya customerka. marka waxaynu eegaynaa laba customer baynu abuuranaynaa. laba customer aynu abuurano waxaynu wax kaga iibinaynaa marna cadaan marna waxaynu kaga iibinaynaa deyn. waxa weeyaan marka koobaad waxa tagaysaa halkan waxaad aragtaan inay qaybato file, edit, preview, list, favorite, company, customer, vendor, employee, inventory, banking, report, windows iyo help. halka ay inventory ku taalo hadii aan in yar idin dhixgeliyo faa'iido halka ay ku taalo inventory cookbook malaha hadaan ahayn enterprise solution. enterprise waa nooca ugu sareeya ee la isticmaalo hadda ee cookbook-yadu saddex way qaybsamaan waa inagii soo sheegnay pro, premium iyo enterprise ku marka wuxuu kaga duwan yahay asagoo inventory buu leeyahay. waxa uu leeyahay inventory sites buu leeyahay hadii aad meherad tahay oo aad leedahay dhowr store ama bakhaar ay ku yaalaan alaab halka siteska waa laga control karaa oo site bal samaysan karaa inventory-ga isagoo isku ka wada jira. marka waxa weeyaan waxa leh enterprise-ka baa leh cookbook-yada kale malaha. enterprise-ku baad ku arkaysaa markaas waxa weeyaan marka aad transaction diiwaan gelinayso ama aad wax sameynayso cookbook aad qaadayso ficil ama action aad qaadayso marka hore waxaad isweydiinaysaa intaanad ficilka qaadin waxaan aad qaadaysaa xagee ku taxawulqaan. ma customer baa waxaan banku lacag bixiyay ma customer lacag laga qabanaya ma customer cadaan wax laga iibinaya ma vendor ma hore su'aal baa isweydiinaysaa marka hore customer kan invoice wax laga iibinaya ee deynta wax laga iibinaya qaybteedu ku jira qaybta customers ku jira. customers waxa weeyaan all of them waxaad ka helaysaa wax kasta oo ku taxalluqa waxaad ka helaysaa customer waxaad ka helaysaa customer centerkii oo ah halka laga lacagta ku harsan. iminka inaga hadaan ku dhufano customer centerka wax allaala wax ku jira oo lacag ma jiraan waa maranta waad aragtaan. marka waxa weeyaan customer markaynu abuurnay aynu wax ka iibino halkaas uu soo gelayaa weeyaan waa halka laga eego centerka wax kasta center buu leeyahay. customer center buu leeyahay, vendor center buu leeyahay, employee center buu leeyahay, inventory center buu leeyahay. marka customer centerka waxa weeyaan lambarka labaad waa create estimate macnaheedu waxa weeyaan quotation. qof customer ku yimid quotation si marka waa qaab quotation casharada dambeyn ku arkaynaa. marka waxaan mid u wada sharixmayna waxa weeyaan iminka waxay tagayaan lambarka halkaas ku taalo create invoice. halka create invoice-ka waxa weeyaan halka laga abuuro halka marka customer deyn wax laga iibinayo la tago. marka create invoice hadaan ku dhufto create invoice hadaan ku dhufto waxa weeyaan halkan ayaa ku soo baxaysa. halkaas waxa weeyaan customer job ku taal halkaas waa halka customerka laga dooranayo wax laga iibinayo wax customer inuu ma jiraan aynu wax ka iibinaa inuu ma jiraan. marka waxa weeyaan halkan waxa weeyaan halka lagu qorayay alaabta iyo waxa halka template-ka waxa weeyaan wad kala bedelan kartaa. markaad kala bedelato qaybtan hoose marba waxay noqonaysaa action. marka waxa ugu fiican oo la doorto halka professional marka la doorto wuu isbedelay halkan template-ki wuu isbedelay. waxa ugu horeeyay inventory-ga oo halka item kugu jiray description-kiisi quantity aad gelinaysa price iyo total ka soo baxaysa. hadii imika kan aan ka qaaday aan ku noqdo ay ku taalo entity product invoice waxa weeyaan wax ugu horeeyay quantity adigoo quantity soo galiyo qofka aad ka iibsay item-kiina gelinaysa markaasaad price-kiina gelinaysa marka kaasa ugu yara officialsan. marka waxa weeyaan waxaan sameeynaa customer baan abuureynaa. customer-ka waynu soo aragnay halka laga abuuro customer ka laga abuuro meel ka dhow maanta intuu soo laga abuuro casharada hore ku aragnay customer ka laga abuuro oo waxaan tagnay customers baan tagnay customer center baan tagnay waynaga tagnay markaan customer ka abuureynay new jobs waynaga tagnay new customer waynaga tagnay halka waynaga customer ka soo abuurnay laakiin saaca waxaan doonayaa meel ka dhow inay tuso oo customer ka laga abuuro
waxa weeyaan haddii customerka aad daaqadiisa aad joogto customerka halka aanu kugu jirin intaad customerka soo abuurayso ee haddana hodhowta ama baan ku raacdan wax ka yeelinaysa dhibaato waxay ku qaadanaysaa waqti ku qaas marka waxaad sameynaysaa halka ay add new talas ka dhufanaysaa automatically daaqadii customerka laga abuuray ku geeyay bal waxaan abuuraya customerka waxaan ka iibinayaa ninka la yiraahdo Cabdirasaaq wax ka iibinaya Cabdirasaaq Umar ninka la yiraahdo wax ka iibinaya ninkan wax ka iibinayo magaciisa markaa ku qornay markaan magaciisa halka ku qorto waa nin ku yiraahdo ka soo bastigareeya hodhotaan intuu say bastigaas wax inii faa'iideynayso halkaas intaad soo koobi gareysaan inta aad soo koobi sida soo bastigareynaysa halka company name ay ku taalo ama halka ay ku taalo address bill labada ka doonto ku koobi gareysan karta marka halka ku koobi gareysato okay baad oranaysaa okay marka tiraahdo waxa weeyaan customerkii waxa weeyaan waa samaysay haddaba waxa weeyaan customerka waxbaad ka iibinaysaa wax allaale waxaad ka iibiso waxa weeyaan waxaad haysataa laptopskaas hore igu jireen computerka waxa weeyaan bal waxaan sameynayaa laptopskaasaan ka iibinayaa haddii aanay igu jirin aan doonayo inaan shay kale ka iibiyo marka hore inventory-ga waxaa lagu soo guranayaa company-ga ayaa lagu soo guranayaa inventory-ga company-ga saa lagu soo import gareeyo waan arkaynaa ee loogu soo guro laakiinse bal tusaale ahaan halkaa ad baan iranayaa item baan doonayaa halkaa markaan aan imaado halkii itemyada laga abuurayay service baa ugu horeeya inventory-ga ku xiga inan inventory-ga waxaa ku xigta assembly ku xigta fixed asset ku xigta order charge ku xigta bal inventory part baan abuuraya shay baan abuuraya shayga waxaan markaan abuuro waxaan sameynayaa waxaan u bixinayaa shayga waxaan u bixinayaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxaan u bixinayaa miss baan abuuray miss markaan abuuro halka kuskiisa ku qoraya inta la siinaya ku qoray waxa la siinaya $12 halkaas waxaan ku gelayaa inta quantity aan haysto waxaan haystaa 30 xabo asaga isku xadfan halka ay ku taalo total value asaga isku dhufanayo 12 iyo intaas marka 30ka miise aad haysataa midkiiba 12 ku joogo totalkoodu waa intaas ku oranaya halka waxa weeyaan account-ka waxaad ka doonaysaa income waad ka doonaysaa ama revenue oo marka shayga la iibiyo uu xisaabiyo halka hadaan furnaa isagoo automatically ku buuxinaysa account sales income marka kaas iska dooranayna waa sales income account-ka dooranayso weeyahay waxaad ku dhufanaysaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad okay baad siinaysaa okay marka siiso waxa weeyaan customerkii uu ku dooran yahay waxa ku soo galay miiska ku soo galay waxa weeyaan 30 mid baad haysatay 30 xabad haysatay waxaad iibinaysaa 5 xabo $12 buu ku sheegay waxaan siinaya $15 baan siinaya $45 warqadan martaba waxay tusmaa iska dhaxaa la iska daaya $75 ayaa ninkaas amaah kaga iibinaya halkaas invoice numberka ayaad gashanaysaa waxa weeyaan juwanka soo go'ay ee lagu keenay amaahda aad gashanaysaa waxaad ka soo qaadaa 001 baad ka soo qaadaysaa halkaasna date-ka ayaad ka bedelaysaa hadii aad ka joogo maanta u deysaysaa hadii mid kale uu joogana waad ka bedelaysaa waayahay waxaad oranaysaa hadii aad customer dambe diiwaan geliso save and new baad oranaysaa ama waxaad oranaysaa enter baad ka taabanaysaa hadii aad iska xidhayso daaqadan waxaad oranaysaa save and close imika waxaynu doonaynaa daaqadan inaynu iska xidhno inagu waayahay save and close ku dhufan save and close markaynu ku dhufano waan iska xidhnay haddaynu customer ku noqono oo customer center aynu tagno waxa weeyaan ninkii Cabdirasaaq Umar Axmed lahaa waxa ku qoran 5 iyo $70 hadii faahfaahin aan u baahnaa qaybta ma tagayna qaybta markaan tagno waxa weeyaan halkan laba qaybood kala xidhatay qaybtaas ara waxa weeyaan information-kiisi hadii lambarkiisa halkaas ka muuqan lahayn halkana waa qaybta transaction uu qaatay hadii ku soo dhufano wixina geenaya invoice maanta wala top qaatay waaye ninka Cabdirasaaq la yiraahdo waxa weeyaan waxaynu sameynay waxbaynu amaah kaga yimid bal waaye waxaan sameeyay Cabdirasaaq oo lacagtiis ka bixiyay Cabdirasaaq Umar waxa laga yaabaa lacagtii markiiba waa horshadii casho ka bacdi 5 casho ka bacdi keeno marka uu keeno waxa tagaysaa customer baa tagaysaa customer marka tagto waxaad ku dhufanaysaa halkay ku taalo waad ku dhufanaysaa receipt payment lacagta ka qabanka marka halkaad ku dhufato halkaas ay ku taalo receipt from yaad ka qabanaysaa lacagta waxa doonaysaa qofka magaciisa Cabdirasaaq Umar baa doonaya Cabdirasaaq Umar markaan doonto automatically halkaas ay igu soo baxday $75 bay soo baxay ama halkaas ay ku soo baxay kale oo ku buuya midba nooc yahay way ku tusayaan marba meel buu qaybtaas ka afku buu dhigay qaybna halkaas buu dhigay mid halkaas buu dhigay mid meel buu dhigay marka weeyaan lacagta uu bixiyay bal waxaan ka sameynayaa bad lacagta lagu leeyahay bal barba ka qabanaya waxaan ka qabanayaa $40 baan ka qabanayaa ninka juwanka lacag qabashada waxa la yiraahdaa receipt voucher ama cash receipt ama RF waxa doortid uga halkaas lambarkiisa gelinaysa lambarka waxa ka qabanaya juwanka la yiraahdo ID baa ka qabtay ninka lacagta oo loo soo jaray inuu collection ka soo jaray dabeetana wax weeyaan halkaas aan ka qabtay ma ka qabtay save and close baan leeyahay
markaan save gareeyo customer centerka ku noqon customer centerka markaan ku noqdo ninkii Cabdisaaq loo oran jiray lacagtii way ka go'day halka hoose waxaad ku aragtaan payment halka sarana waa invoice ku qaatay halkaasna waa lacag qorshadii loo sameeyay lacagtan 5 ku ilaa 40 bibiyo 5 mal lagu hayo kaas waa customer sida deyn wax looga iibiyo lacagtana hodhowtan ku bixiyo looga jiro bal waxaynu eegaynaa sida customer lacag cadaan wax looga iibiyo iminku iibsaday shaygi lacagtina ku siiyay ma doonayeen ama lagu yeesho ninkaas waaye waxaad tagaysaa customers marka tagtid waxaad tagaysaa halka ku taalo inter sales receipt geli markaad inter sales receipt aad tagto halka wax weeyaan ninka laftigiisa baan cadaan wax kaga iibinaya Cabdisaaq Cumar baan ku dhufanaya Cabdisaaq Cumar waxaan ku dhufto shay baan ka iibinaya shaygan ka iibinaya wuxuu noqonayaa miiskii baan ka iibinaa mar labaad baan miiskii aan amaahda ka iibinaa cadaan wax ka iibinaa markay cadaan wax ka iibinaa markii hore waxaan ka iibinaa imika waxaan ka iibinaa 3 xabo 3 xabo waxaan ka siinaynaa min $15 baan ka siinaynaa imikana $45 ayay cadaan wax ka iibinaa halka ku qoran wad aragtaan kii hore infoos ku qoran halka ku qoran sales receipt markuu ku soo qoray wuxuu garanayaa programku marka hore baa ninkan in uu lagaga iibiyo cadaan wax markaas lacagtii lagu lahaa waxa weeyaan ugu darmaayo waa amaha way kordhay laakiin se waxa weeyaan uu ku qorayaa waan ogyahay in cash lagu qabsaday halka ay ku taalo deposit waa lacagta akoonka ku dhacay akoonka waxa la yiraahdaa undeposit fund baa la yiraahdaa undeposit fund automatically waa maqalka yara maalinha ah isaga ku dooray lacagta ku dhacay hadii aad akoon kala doonayso waad iska bedeli kartaa akoonka doontaad ka dhigan kartaa lacagta ku dhacdo marka waa qastanta waxa weeyaan baad ka dhigan kartaa lacagta kugu soo dhacayso wax doontaad ka dhigan kartaa waaye safe aan baan iranayaa close safe and close safe kare xidna waan iranayaa ninkaas cadaan wax kaga iibiyay waaniga kaga iibiyay waxa weeyaan ninkaas waxaan tagayaa customers markaan tago waxaan tagayaa customer center waxaan tagay ninkii Cabdisaaq loo oran jiray lacagtiisa ma kordhin waa 35 kilo lahaa laakiin halka waxa ku qortaan sales receipt $45 oo sales receipt iibsaday markaas lacagta lagu leeyahay waa lacagtiisa hore lacagtan uu iska bixiyay already waxa weeyaan halka waan dhameynay waan u malaynayaa customerka waxa weeyaan marna cadaan wax ka iibinay marna deyn wax ka iibinay labadaas ma customerka wax laga iibiyo bal waxaynu eegaynaa sida alaab looga qabsado qof purchase qof baad alaab ka soo iibsatay marka qofkii alaabta aad ka soo iibsatay ayaad doonaysaa inaad qofkii alaabtina aad ka qabsato inventory-gaaga kordho aanad u record garayso lacagtiisina aad u record garayso waaye haddii aan vendor markaan tago waxa weeyaan centerku waa halkaas waad ka tagi kartaa shaashadu iska yaala xaggaas sarana ka tagi kartaa vendor center vendorka markaan tago wax vendor imika ma jiraan wax vendor ma jiraan vendor baan abuuranayaa vendorka aan abuurto waxaan u bixinayaa Soomaali ayaan u bixinayaa markaan vendorka u bixiyo Soomaali ninkaas Soomaali la yiraahdo waxa weeyaan magaciisa mar labaad baa kaasna sidii kale lagu soo besti gareynayaa company file-ka ama biilka ama company name-ka lagu soo besti gareyn karaa waxa weeyaan saas oo oranayna ninkaas Soomaali lahayn ay doonayaan alaab inaan ka qabsano markay doonayaan alaab inaan ka qabsano vendor bay tagaynaa halkaas laba qaybood baad aragtaan waxaad aragtaa receipt item and interbill iyo receipt item labadaas uma laga qabsadaa vendor wax mar waxa weeyaan receipt item ninkan waxaad ka qabsataa itemkii ka qabsan ama inventory-gii ka qabso ama alaabtii ka qabso biilkiina wala socda interbill macnaheedu waxa weeyaan biilkii baa la socda halka kale waxa weeyaan receipt itemkii qabso waxa laga yaabaa item waxa weeyaan alaabta ku soo gaadha inaan la socon biilkii ay alaabta ku qorneed marka kaas oo kala taabanaysa qayb kale tigis kartaa aad ka qabsan kartaa oo ah receipt item halka shaashada qaybta vendorka aad tagto waxa weeyaan halkaas waa receipt inventory with biilkii wala socda qabso without bill na waxa weeyaan biilka lama socdo marka bal waxaan tagaynaa isagoo biilka la socdo qaybta mid ka tagaynaa waa isku mid aytan ka tan halkaas waxaan dooranaynaa Soomaaliga aan soo dooranaynaa ninkii Soomaali loo jiray alaab bayn doonayna ka qabsana alaabta wax laga yaabaa alaab aan hore u haynay inay noqon karto iyo alaab aan hore u hayn bay noqon karto bal waxaan ka dhigaynaa alaabta inay tahay alaab aan hore u haynay ninkan ka qabsanayo noo soo kordhay alaabta hore ayaa naga yaraatay marka dhammaatay waayo miis baan ka qabsanaya miis markaan ka qabsano markiiba qiimihii baa soo boday miisku wuxuu ku tagan $12 waxaan ka qabsanayaa miisaan 80 xabaan ka qabsanaya miisaan qiimaha laftigiisii waxa weey uu soo boday markiiba qiimaha ka jawaab maanta laga soo siiyay maanta 10 baa laga soo siiyay alaamis marka 10 laga soo siiyay daaqada maska xiraysa waxa weey 800 waxa weeyaan ninkaas ama ayaan ka soo qaadanay waan saf gareynay customer waxaan tagaynaa vendor centerka markaan tagno waxa weeyaan waxaan aragnaa ninkaas inuu $800 inagu leeyahay alaabtiina waxa weeyaan ay noo soo gashay inventory-geena way noo kordhay waad arki kartaan inventory-ga laga eego waa list marka laga tago item list marka laga tago miisaanta hadda aragtid waa taa miisaanta hadda ku soo dhiftay dhimka kliksiiso waa taa quantity way kordhay
waa 102 yaala marka intii laga iibiyo laga jiro wax weeyaan haddii aad doonayso waxa kala yihiin adigoo dul jooga itemkii ayaad right click siinaysaa right click markaad siiso waxaad ku dhufanaysaa banku quick report halkaas mid ka hooseeyo ku dhufanaysaa markaad ku dhufato wax weeyaan wuxuu soo kala baxayaa wax weeyaan ninka waxa laga qabsaday 80 kaas laga qabsaday waa ka bill ba ku taala ninkaasna wax receipt cash wax laga iibiyay 3 xabo ninkaasna invoice wax laga iibiyay iyo 5 xabo marka hore inventory ku yaala 3 xabo marka saas uu kala jarjaraya imkana 102 ku yaala waayay inventory uu kordhay ninkiina lacagtii waynu ka qabsanay biilkiina uu watay waayay waxaan sameeynaa ninka lacagta iska bixinayna ninka vendor ka lacagta ka soo qabsanay waxaan doonaynaa in lacagtiisa iska bixino oo nagu leeyahay waxaan tagaynaa vendor waxaan tagaynaa pay biilka iska bixi biilka markaan iska bixinaa ninka magaciisa ka doornaa Soomaali markaan doorno 800 ba soo boodaysa Soomaali u lahaa haddii aad qayb bixinayso halkaas aad ku qoraysaa qaybta aad bixinayso haddii aad wada bixinayso halkaas aad taxaysaa iminka waxa laga yaabaa inaynu qayb bixino 800 ninkaas nagu leeyahay 400 baan siinay halka hoose waxa weey akoonka laga bixinayo akoonka laga bixinayo halka lagu qorayo ma waxaad ka bixinaysaa cash on hand baad ka bixinaysaa ma akoonka laga bixinaysaa dadka kale ku jiraan ma dahabshil baad ka bixinaysaa ma waxaad ka bixinaysaa salaama ma waxaad ka bixinaysaa akoonada kale amal akoonka doonaysa baad ka doonaysaa imka cash on hand akoonkaas ka bixinayna cash on hand 400 waxaan doonaynaa inaynu ninka iska siino aynu u nahay inagu macaamilka aynu nahay vendorka aynu dhan baynu tageynaa waxa weeyaan customer waxa vendor center baynu tageynaa vendor center ka markaynu tagno waxa weeyaan 400 baa ku inagu leeyahay ninka macnaheedu waxa weeyaan bill way iska bixinay method of payment inta loo soo gaabiyay check way iska bixinay waa 400 bay iska siinay 800 na way ahayd isna waxa weeyaan yaan daawadayaal halkaas aan kaga baxaynaa ninkaas vendorka ah ee lacagta 400 haynugu yeesho inta kale wax weeyaan waa inaga iska bixinay bal waxaan tagaynaa hadaba sidee ayaa loo daawacaa statement sidee ayaa customer lagu daawacaa warqad qaansheeg bish markay dhamaato waxa doonaysa customerskaaga inaad qof kasta lacagta lagu leeyahay aad u geyso oo faahfaahsan wixii laga jaray iyo wuxuu qaatay iminka Cabdirasaaq Umar Axmed markii bishu dhamaato lacag baaynu ku lahayn lacagtaynu ku lahayn waxay ahayd $35 bay ahayd $35 markaynu ay bishu dhamaato hadaynu tagno ku lahaa Cabdirasaaq Umar oo $35 keen waxa laga yaabaa inuu lahaa isoo faahfaahiya xagay ka timi ma garanayo si aynu taa uga hortagno wax weeyaan qofka waa inuu u geynaa statement waa inuu u geynaa warbixin dhameystiran lacagtiisa waxay ahayd oo waan ku ay waxa soo dhan ku wada yaalaan inuu mar inaga qaatay 75 infoosa marna 40 nisiyay yay 5 kuna saagu soo hareen waayahay hadaba halka tagaysa daaqadan iska xid waxa tagaysa illa wax aad u daawacayso mar kasta maskaxda ku haywan kula waa customer ba tagaysa customer marka tagto wax weeyaan waxa tagaysa halkay ku taalo create statement ninka statement iska tag marka halka aad tagto waxa ku soo baxda daaqadan markay ku soo baxdo halka aad ogtiin waxa ku qoran statement from bishaad uga bilaabayso waxa laga yaabaa qofkan inuu 5 bilood waxa dhahay warqadii soo daabacay lagu lahaa ama lacagtu ka mursan 5 bilood inaad bil uga daawato marka waxa weeyaan bisha aad ka bilaabayso waxa tagi kartaa bisha baad tagi kartaa June baad tagi kartaa 3 ka bilow oo waxa ku joojisaa August 7 aad ku jooji halkaas aad ila kartaa haddii aad ka sii badan tahayna waan dib baad uga noqon kartaa halkaas baad ka soconaysaa bilaha kale aad ka soconaysaa mar hore soconaysaa way halka ay customer taala dhimanaysaa waxa dooranaysaa ninka magaciisa Cabdirasaaq Umar uu soo booday marka Cabdirasaaq Umar soo booday waxa weeyaan waxaad sameynaysaa halka ay taalo show infoska itus haddii aanad halka ka tagto aanad calaamada halka saarno aad ka tiraa preview oo aad tiraa halkaas waxa weeyaan kutusi maayo waxa kale yihiin 5 laga jiray 45 halkaasna waxa yar ku qoraya kutusi maayo alaabta marka waxaan doonaynaa inuu alaabta ina tuso marka waxaan tageynaa show markaan tagno wax weeyaan yaan halkaas ku dhufanaa wayna tushay 45 waxa kale yihiin waa miis waa 5 xabo oo $15 la siiyay waa $17 maalintaasna lacagta ninka waa laga qabtay marka halkaas aad iranaysaa printing halka aan idinku lahaa marka customerka magaciisa qabsan waxaad ku soo best garanaysaa halka ku taala bill to ama company aad ku soo best garanaysaan wax idin faayaysa oo inka ka magaciisa qofka ka arka to hadii ka to arkimaysan u dhowtool maxay noqonaysaa inta qofkii Britain siisto aad daabacdo infoskiisi inaad magaca halka aad ku qorto qalin oo qofku yaabo warqadan computer ka soo baxday magac laga qoray waa nooc markaas waxay ku faa'iideynaysaa inaad magaca qofka markaad create garayso aad soo copy garayso aad halkii company name-ka ay ku taalay ama bill to aad ku copy garayso inuu hodhowto marka aad u daawacayso statement-kiisa si yar oo fudud oo magacii isagu soo qabsado halka ka daawacdo waxa weeyaan intaas ayaan isna kaga baxaynaa inta markaynu isagana kaga baxno waxa weeyaan
waxaynu aragnay customer laba qaybood wax looga iibiyey, mar deyn wax laga iibiyey iyo mar cash wax laga iibiyey iyo mar lacag lagu lahaa laga qabtay. waxaynu aragnay vendor sida waan ku yiri alaab looga qabsado lacagtana lagu diiwaan geliyo hodhowtana lacagta qayb la iskaga bixiyo. waxaynu eegaynaa sida loo abuuro waxaynu kala soo aragnay halkan ku soo dhex aragnay sida loo abuuro item, sida loo abuuro item ayaan soo aragnay oo itemkii waniga abuurnay. itemka marka la abuurayo waxa la tagayaa list haddii ku celiyo hadda artalo qaybtii baan ku dhex abuurnay inagoo ku dhex jirna halkii baan ku dhex abuurnay, laakiin sida list way tagi kartaa. marka list tagto halka item ay ku taalo ku dhufan kartaa. item marka ku dhufto new item baad oranaysaa. new item ka halkaas aad ku dooranaysaa. itemka abuuraysaa muxuu yahay? itemka abuuraysaa ma waxa weeyaan service oo adeeg, ma waxa weeyaan inventory, ma non inventory ba oo ma bahay sida qof aad soo yara qaadatay, ma orders ba, ma subtotal bay leeyihiin, ma grouping ba, ma discount ba. itemka abuuraysaa kaas ku qoraysaa. marka wax weeyaan waaniga inventory bay doornay, waaniga bixinay akoonka, waaniga qornay akoonka asaga haysto qof school soo waa akoonka alaabta la fahmay asaga markaas ku siinaya adigu akoonka uu kugu soo dhacayo hodhowta si isku bad dooranaysaa. wax weeyaan inaga xirtan wax weeyaan iska xirayna daaqadan iska xiri karnaa baanu malaynaya oo iska xirna daaqadan. allahumma salli ala sayidina maxamed. intaas ayaynu doonaynaa casharka maanta inaynu ku joojino. faa'iido leh ayaan soo gelinayaa channelkan. waxaad ku dhufanaysaa subscribe. haddii aad subscribe aad ku dhufan cashar kasto aan soo geliyo automatically kuugu iman maayo, laakiin si cashar kasto aan soo geliyo ku saabsan automatically ku imanaya in la gareeyo ayaa akhyaarta sharafta leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wa in salaamaya.